السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada tag Soomaali maanta waxaan ka hadlayaa mowduuc ku saabsan dhanka copycatka ama dadka website-yada copy-yaan video yar oo quseeya website-kan kor ka muuqdo waxaa la Jamal Deef aniga ayaan iska leh website-kan kalena haddii aad fiirisaan dadka video aan arko yaqaan Geelo Bashir ayaa la ninkan dhammaan haddii aan website-ka hadda matalan oo kale home ko kale aan tagno oo ka bacdi service-kiisa aad tagno looga ayaa saaran website-keygana looga ayaa saaran micnaha waxaan ka wadaa coverkan same waa oo sawir laptop la dhexgeliyey waaye micnaha looga hadlaya responsive-ka iyo waxaas sawir aan aniga gacanteeda ku sameeyey waaye loogada saaran waa ujeedaan tag Soomaaliya lahaa tag Soomaalina magacaas dhan boqolkiiba 90 aniga iska leh ereyga tag Soomaali haddaa aragtid sababtoo Facebook haddaa ka raadis aniga iska leh TikTok ana iska leh YouTube kana ana iska leh dhan walba oo social media Instagram dhan walba ana kale meeshaasna waxay kaaga cad magacaas waqti dheer dadka qaar micnaha marka anaga Soomaali ahaan la dhahay lagu fikirin ayaa waxa soo magacyo wada qabsaday anaana micnaha ina marka taas cadeen ugu filan okay sawirkan inaan leeyahay waxa cadeen u kaliya oo ugu fudud oo hadda aan idinka tusaa sawirku waa kana tag Soomaali kan saaran iyo meeshan kan saaran waa ujeedaan right click hadda dhahno hadda fiiri muuskayga aanu dhaqaajinayo boobsiis right click properties hadda dhaho meeshan ayaa imaanaysaa waxaana marka waxyaabaha aan la qari karin oo asigan hadday noqoto uun la imaan karin waxaa ka mid ah kan bishii 7 soddonkeedii 2017 waqtigaas ayaan sameeyey inta waa maxaan aga baxnay inaan loogadan meesha saaran uun dhihi karin micnaha iyo sababay ku soo gashay iyo inuun raalli ahaasho oga haysan meeshaas ayaa kaaga waxaa xiga qaybtan hadda meeshaan oo kale responsive ugu qoran anigana responsive waxaanoo dhammaan aa ujeedaan wuxuu ka koobiyey website-kayga copy paste dhan walbo sidaas ayuu ku sameeyey أنا online marketing Google كقري كبعد screenshot كاس أنا كقاطي معناه واحد أسمي ست Google عقلي هاي مسكح هذا فكر كي يكون هاي مركا معناه سوكر دميز إن أقف وحيس كوب بيستو special أو كلا سوبر كانوا ماشان أو ongoing support تيجا تان ماشي صار نكوب بدشتي سوبر كان حتى وقاعد الله لكن وقاعد هو مجا كقرن جمال عمره كقرن صاص درت ذا بتجي مركا ماشان أو كلا ويب سايت جانجس كو كلا تو لو مول بفيري معناه سيدا أقرني oo asigana meeshan ugu qortay taa ilaa heerka ee meesha kubiga ka maraysa maanta waa qaybtaas haddii aan tagna qaybta kaleeta about aadkiisana sawirada xoogaa blur anaa gelishi marka same waa marka hadda about us kale haddii la tago kaleeto waxaa ugu daran qaybtaas oo kaleeto xataa fiiri meeshan buluug waxaa u geliyey laamadan CSS lagu sameeyaa xataa sida ay tahay u kuubiyey micnaha qofka inaa fikir la imaataa fiican qofka wixiisa waa akhri kartaa maskaxda marka lagu dhahayo qofkan wax ka fiirso معناها waxaan wax qofku wixiis waxa loo qaataa inaa tusaale ka qaadatid laakiin sidii yihiin inaa u sameeyso ma aha oo qeybahan hadda boxidaan oo kaleeto meeshaan oo kaleeto dhan walba see tahay ayuu u koobiyey meelo yaryar oo wuxuu ugu dabadaray meesha gabagabada magaca meeshaan la staalka xataa fiiri meeshaan qaybtan hadda imaana madowga shaashada fiiri haddana sidee tahay ayuu u isticmaalay meel kasta fiiri wax uu ka bedelay ma laha marka hadhuuna qofkan wuxuu taagan yahay Somali web design agency ah marka sababaha xataa fiiri oo title-keena xataa wuu kuubiyey sababta uu kuubiyey idin sheegaa title-keyga xataa oo tag name-ka haddii aad ku qortid oo kale Somali web developer oo kale haddii aad ku qortid labadan website oo kaleeto oo ugu sareeyo abowga labadan sawir iska leh waa website aad u weyn oo micnaha traffic fiican haysto laakiin wixii kaloo yar macquula kana meeshaan oo kaleeto macnaha ku jiro laakiin kan oo kaleeto waxaa waaye Google ahaana usoo sameynay laakiin saxda haddii la ranking waa kana qofka saddexaad oo kale noqona haddii labadan laga soo xisaabo 1 2 3 meeshaan qofka afraad ah nin heerkan meeshaan koobigiisa uu marayo waaye marka wuxuu isla xataa waxaan hadii aad koobigiisa waxa laga yaabaa qofka saddexaad afraad in adigana noqoto sidaas uu fikir meeshaasna waxa kaaga cad aqoon darada dhanka SEO ama micnaha waxa la dhahaa rankingka website rankingka heerkii ka taagantay waxaan idin tusanay intaan waxay tahay ina aragtaan qofka koobigiisa waxa intaas sii dheerne waa reportka aan ka diyaariyey mar walba haddii aad fiiriso daatadiisa oo kaleeto meeshaan oo kaleeto meelaha oo intoo kale haddii aad pagekan oo kaleeto control F dhahno oo magacaan aan ku qorno fiiri uu inta meelo ka soo baxayo fiiri waa kana daatadan waxay ku dhex jirtaa website-kiisa sidee tahay ayuu u koobiyey marka meeshan wuxuu ku sheegaa 23% inuu website-kaas ka soo qaaday hadda fiiri oo kale Jamal Deef oo kale service-kii oo kale haddii aan meesha day aan ku jirno idin sharaxay ahayd marka waa fahmi kartaan ilaa heerka ay koobi ka gaarsiisan tahay ninkan sababta kalifta ayaa idin sheegaya inaa videogan duubo micnaha matalan oo kaleeto qofkan 50 maalin oo micnaha fursadan siiyey fursadda 50 maalin waxay ku gaartay 10 maalin si 5 maalin si week ugu dar waa ugu yar tahay adigana waa fahmi kartaa waxaaga aad iska leh qofkan waa xushmeynaysaa haddii adoo intaas ku fikirayo oo qofka marka ugu dambeeyo oo ku dhaho cunug yaraa tahay ciyaaraha noocan ay la ciyaarayso
anigana waa aqaanaa waana kula ciyaari karaa ciyaarta ani asi ay ciyaarayna maxay tahay intaasna xishoodkii uu gara waayey anigana markaa xishoodkayga wuxuu ii arkay buu micnaha inaa cunug yar ahay iyo doqonnimo iyo eraya aanan markaas qofka dadka qaar ugula hadlo eena mudnin ayuu ugula hadlay wuxuuna kala gara waayey qofka asiga dantiisa ka fikiraayo iyo qofka oo businesska oo sheeganaya soo doontay kala saari layahay hal midna waa ku raacinaa geelow videoga inaa aragtaa laga yaabaa haddii aad gadaal micnaha bini'aadanka qaladkooda way saxaan qaladkaaga haddii aad saxdo raganimadu lagu sheegaya ma aha inaa gabar guursato ilma dhasho ma aragno raganimadu waxaa waaye inaa qaladkaaga haddii aad taagan tahay aad dhahdid niyow waa kaa qaldamay igaraal lahaw waa meel laga hadla ma ah haddii laga qaldan yahana inaa waxaaga dhacsatana waa qayb raganimada ka mid ah waa meeshaas midda kaleetana adigana yurubaa joogtaa anigana yurubaa joogaa sida adiga hadda micnaha videoyadaada iyo waxyaabaha aa ka arka meelaha oo laiskugu imaadaa tagtaa laakiin su-aasha aa ku weydiinaya waxay tahay wixii hore waa baxeen maanta ka dambeeya haddii ma laga yaabaa inaad meel tagto oo yuruba aad dhahdo micnaha nin aqoon-yahana ahay dadkan wax baraa waa idiin faa'iideynaa mala soo hor fariisan doontaa mase ma moogtahay meesha adi aa ka qudbeynayso anoona hadda danka lahayn inaa imaado aan dadka weydii karo qof copycat ah ama control c control v champion qof ah sidoo wax noogu sharxaa waa dhihi karaa taasna waxay kaaga imaan kartaa ceebteeda waa garan kartaa marka videogan intaas ayaa kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu